iridda hore ee laga soo galo madaxtooyada oo qalab casri ahna lagu rakibay taas oo si fudud ay u isticmaali karaan dadka soo gelaya Villa Soomaaliya. waxaan howlka qabanaynaa madaxtooyada Soomaaliya howsha qabanayna waxa waaye waa installation of security system ama inaan gelino qalabka oo security oo high class oo casrisan inaan gelino madaxtooyada ee Soomaaliya. meeshan aad joogno waxa waa guard house ama qolka ilaalada waardiyaha oo qolada u gudbayso gudaha si oo waardiyeynayay qolkan sida arda u jeedaan waxa way kor ay u kacay qol aad u yar ayu hawa weyn hadartan waxa la dhigi doonaa gudihiisa laba shay oo baaritaan ah midna waa luggage scanner waa meeshii boorsooyinka wixii lagu baarayay la dhigi doona iyo walk through scanner midkii dadka dhexmarayeen oo baaritaanka ah qolka hadartan hawshiis meeshan ay maraysa muddo koon gudeed insha Allah waan soo gabagabeynayna waan rinjiinayna meesha dhaxbartamaha waxa ugu talagalnay in ay dadkii socdo ay dhexmaraan waxaan ugu talagalnay gadaal dhinaceeda kale waan arki doontaan qayb oo ah jaranjarada dadka caadiga ku soconayeen iyo qayb dadka oo disabled ama naafaha ay marayaan oo kale oo ugu talagalnay ayagan meeshaas. waxaa sidoo kale la adkeeyay ammaanka soo gelitaanka madaxtooyada iyadoo labada qaybood la kala soocay oo dadkuna ay maraan meel gaar ah halka gawaariduna ay maraan baaritaano casri ah oo heerar kala duwan ay soo maraan. halkan aad arkaysaan waxaa ku jira qalab casri ah oo loogu talagalay inuu gaariga uu ka baaro waxyaabaha hoosta ugu dhagan si uu arko qofka halkaas ku jiro. hawshan istiraatiijiyada waxay bilaabatay 2017 bishii July waliba 11keedii meelahaas inay ahayd baan filayaa. shirkii ugu horeeyay aan qaadanay wuxuu ahaa laba hadaf inaan marka hore tiigsano. kow inaan amniga madaxtooyada sidaan u adkeyn lahayn gab ahaanba qaabka loo soo geliyo iyo cidda soo gelaysa. tan labaadna waxay ahayd bilicda madaxtooyada saan ayadana u qurxin lahayn. labada hadaf anoo ka duuleynaa waxaan isweydiinay sidee hawshan u gali karnaa. fursad waxay noo saamaxday marka inaan marka wax la diray inaan istiraatiiji ahaan soo fiiriyo madaxtooyooyinka adduunyada ama state house-yada kale qaabku amnigooda u sugan yahay bilicdooduna u hagaajisan tahay. markaan baaris ku soo sameynay wadamada noo dhow iyo kuwa noo fogba dhamaantoodba waxaa noo soo baxday inaan qalabkan la yiraahdo bollarka oo birahan dhulka soo baxaya ah road blockerka oo kan naga dambeeya ah qalab saasa sidii aan u soo hagaajin lahayn u keen lahayn iyo waliba inuu noqdo qalab quality leh oo la test gareeyay. UK baa waxa ku yaala meel qolo commission ah oo qalabyadan yaani baabuurta intaasoo tan ah lagu test gareeyo inuu baabuurka crash garoobo meesha qalabka dhaawac ka gaar lahaa. marka meeshan ka soo bilaawno marka koowaad waxay ahayd inaan istiraatiijiyadii fiirino kadib gawaaridu markii halkay dhaafaanna waxay sii mari doonaan dhowr aaladood oo casri ah oo loogu talagalay in lagu sugo ammaanka madaxtooyada. xeendaabyo aad u fara badan iyo iskaan lagu hubinayo waxa ku xiran gaariga hoostiisa ayaa lagu soo kordhiyay horay uma aanay jiri jirin adeegan. marka waxaan arkayay kolkii hore qofkii soo gali jiray madaxtooyada iyo hadda qofka soo galay bal farqiga u dhaxeeya waxa u dhaxeeya laba wax waliba qofka kaliya ma gawaarida iyo waxaan oran karnaa qofka marka hadaan ku hormaro qofka su'aasha ay weydiisay kadibna gawaarida kugu xijiyo qofka waxa u dhaxeeya marka koowaad awal qofka yaani meel yar oo askari balbala oo habuu istaagi jiray laakiin hadda waxay noqotay in laamigii dadka ay soo mariyeen marka hore loo dhiso askarigii meel yar oo nadiif ah u taagan yahay oo marka koowaad askarigu qofka uu hubiyo qofkan qof xaq uu ku gala meesha lama yahay laakiin meesha saxda qofka lagu baarayo waa meesha ay fadhiyaan control roomka oo yaani dadka qofkii walk through-gi dhaxmariya iskaankii x-ray-gi dhaxmariya ID-giisa hubiya qofkiina uu dareemayo si sharaf leh inuu meesha uga soo dhaxbaxay sidoo kalena waxa ku xiran tone style oo wareegayo qofkii hadduu hub ama wax kala watana laftigeedana maxaan ku iraahdaayo ciriiri iyo xanibaad gelinaya waxyaalaha marka hadda waxaad moodaa inay sidiina ka fudud tahay kana sharaf badan tahay gawaarida ku soo haray taa laftigeeda waxay fududeysay inaan keenay fingerprint oo gaarigu awood u leeyahay haddii meesha awal waraaqda laga sii jiray haddii gaariga la diiwaan geliyay qofka darawalka fartiisa in la diiwaan geliyo ama xildhibaanka gaarigaas kale ama wasiir gaarigaas kale darawalkiisa ama qofka ka shaqeeya madaxtooyada ama xafiiska ra'iisul wasaaraha taa warka waxay fududeysay qofka inuu farta saaro ay alaabtiina ka furmato saanu qofka ku diiwaan gashan yahay baabuurkan la yaqaan taarikadiisa qofka farta saara inuu ahaa baafo
goorta uu soo galay iyo goorta uu ka baxay xataa la ogaan karo inuu eriyadii madaxtooyada gaarigu ku dhex jiro inuu ka dhex baxay taana waxay fududaysay amnigii marka askartii waxa uu fududaatay shaqadii dhowr waxba horta qorraxdii ay fadhiyeen waxa lagu bedelay maxaan ku raadaayo meelo ay galaan oo qurux badan labo birtii cusleed oo xariga ugu xorneedo isku bedeli jireen oo dalaci jireen oo maalintii dhan qof inuu ku mashquulay ahaydna waa laga baajiyay askari waa diyaarsan yahay qofkan iyo gaarigan ku mashquulsan inuu marka hore isku hubiyo meeshaan qalabkan aan gelinay hadda oo jeedin way taagan tahay qalabkan waxaa la dhahaa tayakila taayarada ayuu banjarinaya baabuurkii isku day inuu sharci darro kusoo gudbo qol ayaa inta la keenaya oo la dhigaya system ayaa inta la gelina wixii horay oo manualka baabuurka oo xarig in laga qaado xarig la sii daayo oo la soo celiyo waa laga gudbay askari qolka ku dhex jiro waxaa la leeyahay baabuurkaas ka qaad bitoon oo wuxuu riixaya oo up baashan kor ay u baxayso qalabkan meeshan birahana ilkaan hoos ay galayaan haddana markii birta u soo celinayo bitoonka down uu riixaya automatically birtan ida soo celinayso ganahana way soo baxayaan marka baabuurka isku day sharci darro inuu meesha gudbo taayarada ayaa ka banjarayso meel fogna ma gaarayo waxaa sidoo kale isbeddel lagu sameeyey wadooyinka ama dariiqyada gala gudaha madaxtooyada ee la isaga kala goosha xafiisyada iyagoo ahaayeen kuwa aada u burbursan howlaha socda ayay ka mid tahay macnaha ma garatay madaxtooyada in bilicdeedii iyo quruxdeedii la soo celiyo laamiga ayaa ku bilowday waxaan rabnaa feeska koowaad oo hadda socda oo ilaa iyo gudaha madaxtooyada ilaa xafiiska madaxweynaha ilaa guryaha martida ilaa iyo guryaha iyo beeraha agtooda laamiyada maraa oo dhan in la soo nooleeyo macnaha ma garatay oo si fiican loo saaro wixii ka dambeeyana waxaan howlgeli doonaa feeska labaad oo runtii gudaha madaxtooyada meel kasta oo ay ka muuqato laami la'aanta iyo diifta ka muuqata macnaha maartay in laga tirtiro oo laga baabiyo waxaa sidoo kale lagu soo kordhiyey amba la hagaajiyey qaybo gawaarida ay dhigan karaan dadka booqanaya amba kuwa ku shaqeeya gudaha madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed laamigan oo hadda la dhisay jidkan 3 kiiloomitir isku yarka ah bilicda madaxtooyadu qayb muhiim ka qaadanaya door muhiim ah laamigaas oo muddo 9 maalmood socday markii aragnay baahidii jirtay oo bilicdii qaranka in la soo celiyo madaxtooyada in madaxtooyada bilicdeeda la soo celiyo oo laamiyadeedana dib u dhis lagu suubiyo si didiilo fiican wadanka guud ahaan ugu noqdo dib u dhiska u horseedo maadaama madaxtooyada qaranka laga bilaabo bilicda beertan waxaa sidoo kale qayb ka qaatay wiilkan dhalinyarada ah ee ku caanbaxay arar farmaajo iyo geeya beerta ayaan hadda dhex joogaa kuley hadda isbeddel weyn ayaan sameynay kuley haddana waa u jeedin beerta ayaan ku dhex jiraa hadda waxay taagan tahay baasha arbeerteeda iyo geeya ayay taagan tahay agaasima aamino iyo aniga iyo kuley shaqaalaha oo kuley ku jiro oo hore iyo anigu kuley hadda isbeddel weyn ayaan sameynay madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed sidoo kale waxay ahayd hoy ay deganaayeen shaqaale iyo waliba mas'uuliyiin ka tirsan xarunta madaxtooyada laakiin hadda waxaa lagu soo koobay oo kaliya inuu halkaasi ku hoydo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed
maxaa haddaba looga faa'iidaystay hooygii dadkaasi laga raray? markaan nimid waxay nala noqotay in maaragtay madaxtooyadu maadaama ay tahay wejigii Soomaaliya ay siday ahayd aan wax ka bedelno. wax bedelkaasna hadda waxa hormood ka ahaa agaasimaha guud iyo aniga iyo maaragtay oo ah agaasimo ku xigeenka madaxtooyada. intaan hadda isbedelka dadka ka shaqeynaya ama ha ahaato albaabadiyo iskaanyaal la dhigay ama laamigii la dhisay ha ahaato ama beerta quruxda badan ha ahaato ama xafiiska weynan anagu fadhina ha ahaato waxaa noo dhima wax badan way isku dhex jireen. hadda qaybta aad kor hadda tagteen ma ogi guriga weyn waxay ahayd qayb maaragtay deegaana ah xafiisyana ah. marka hadda waxaanu maadaama ay tahay madaxtooyo deegaan ma noqon karto hal qof kaliya ayaa degi kara madaxtooyada oo ka noqon deegaan ku yeelan kara waa madaxweynaha Soomaaliya. wiila Soomaaliya meesha la yiraahdo wiila Soomaaliya waa residency ama goobtii uu deganaa madaxweynaha iyo familiyadiisa. la taliyaasha marka hadda muddo aduu 3 bilood ka hor meel ay fariistaan xataa ma jirin hore uma jirin. la taliyo wuxuu ahaa qof uu iska magacaaban laakiin aan meel looga soo hagaag lahayn. hadda daartaas weyn oo banaanka ku taalood aragtay oo ahaan jirtay sida aan sheegay deegaan ahaan jirtay qayb yarna xafiis ka haddana qayb ra'iisul wasaaruhu ka degan yahay ayaa waxaan ka sameynay dayactir xoog laan ka sameynay hanti dhowrka degan xataa waxaan ka sameynay dayactir aad iyo aad u weyn oo gudaheedoo dhan si fiican baa loo dhisay. waxaana la fadhiya hadda oo loo qalabeeyay qof kasta oo la taliya ah. qiiqdii markaa aan imid waxaa jirtay meel beer ahaan jirtay aniga laftaydu dawladdii Sheekh Shariif xildhibaan baan ahaa beer weyn bay ahaan jirtay laakiin markaan soo noqdo waxaan arkay meel gelina oo waxba ka jirin. runtii haddana dadku markay kaftamaya waxay dhahaan beertii ama aaminay dhahaan laakiin beertaydii baa beertii qaranka anigu ma jeclayna la yiraahdo. waxaa iga gashay muddo 5 bilood ayaa banaanka taagnaa xataa aragtidaydu waa bedelantay. marka maahmaahadu waxay ahayd aaminana ha madoobaata beertuna ha qurux badnaato. beerta waxaa ku abuuran moos waxaa ka baxa kostaatada waxay dhahaan cagaarkan la cuno kaliya maaha. aniga aamin ahaan waxaan aaminsanahay inaan kala untusno dalkeena meel kasta inay wax ka bixi karaan laakiin ulajeedadu maaha kaliya in ubaxa la daawado. ulajeedada daba taal waa in la tusaa dadka xataa beertaas yar ee madaxtooyada ku dhex taal haddii la abuurto 5 qoys inay maaragtay dharjin karto. aniga taas way muhiimadaydu. sabuul tiro badan ayaa waxaan ku shubnay dambiil weyn madaxweynahan u geyno narwaakan gurigaaga kaliya intaana ka bixi karta. dalka haddii la hirgeliyo nabadu balaarato dadku wax soo saarka way nagu filanto Soomaaliya oo dhan baa ku noolaan karta. marka qisadaas looga jeeda iyo quruxda kama marna iyaduna. mas-uuliyiinta iyo weliba shaqaalaha ka howlgala madaxtooyadu waxa ay fursad u heleen in ay helaan xafiisyo ay uga adeegi karaan bulshada. haddaba dhismayaashii hore ee madaxtooyada ayaa isbeddel casri ah lagu sameeyey iyadoo dhismayaal cusubna hadda ay socdaan hawshoodii. halkan waa xafiiska uu fadhiisto madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed. waxaa isna lagu sameeyey dib u habeyn ballaaran taas oo qofka marka uu soo galo soo jiidan karto. xafiiska madaxweynaha marka aad gasho waxa aad ku arkaysaa sawirka madaxweynihii ugu horreeyey dalka Soomaaliya Allah u naxariistay Aadan Cabdulle Cusmaan oo suran xafiiska madaxweynaha. waxaana ay muujinaysaa astaanta qiimaha uu dalka uu ku lahaa. muddadii sanadka ay jirtay dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa muuqata in dowladdu ay dadaalo ugu jirto sidii dalkan uu mar kale haybadii uu ku lahaa caalamka dib loogu soo celin lahaa.